diyaaraddii ugu horraysay ee soolarka qoraxda ku duusha dunida ayaa bilowday inay caalamka ku wareegto. diyaaradda ayaa socdaalkeeda ka bilowday abudabi iyadoo ku hakatay cumaan ka hor inta aanay u duulin waddanka indiya. duulimaadkeeda caalamka oo dhan ayaa la filayaa inuu qaato muddo 5 bilooda iyadoo dulmari doonta badweynta Basifiga iyo midda Atlantiga. sharikadda Netflix ayaa muuqaalkeeda HD-ga loo yaqaan kor u sii qaadaysa. qaybta saddexaad ee filimka House of Cards ayaa lagu dubay iyadoo la isticmaalayo kaamarooyinka cas ee muuqaalka sare leh ee loo yaqaan 6K. sanadkii hore waxaa lagu qaaday 4K, laakiin midda hadda waxay 9 jibaar keenaysaa muuqaal HD ah oo fasiixa. qaar ka mid ah madxafyada ugu caansan caalamka ayaa mamnuucaya sawirrada qofku uu iska qaado. madxafyada London National Gallery, Smithsonian oo ku yaalla Washington, iyo Palais Versailles oo Paris ku yaal ayaa si rasmi ah u mamnuucay, halka Louvre iyo Centre Pompidou ay bilaabeen inay weydiiyaan dadka dalxiisayaasha ah inay meel iska dhigaan, iyadoo mar dhow la filayo in si rasmi ah loo mamnuuco arrintaasi. ugu dambayntiina waa kan waxaad helayso marka aad drone ku duuliso jidadka London hoostooda. BBC-da waxaa loo oggolaaday inay duubto jidadka treennada dhulka hoostooda mara iyaga oo markaasi ku duulinaya kaamaro meel fog laga hagayo, halkaasi oo treennadu marka dambe ay ka gudbi doonaan. jidka treenkan ayaa mari doona London isagoo ku xidhaya koonfurta galbeed ee England.